السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حريد حسن حسين أتقن حوكسد هل كان كلا سؤال لا أنا وحوكسد أوفيشيال إن بدن وان كلا مغنين لكن وانا سكسو لابني أنو عثمان قمنا أذينا وحرجيني أساسه كلنا ذو عثمان غبطب بإذن الله تبارك وتعالى برامج كي نتحناها يلا ما بحب بعض قيسك هل كيسيون وقصي سعندونا هذول برالك النقضة ما أنتنا موضوع عن كهل دونا وحو كسابسين هي نوعية الدقنتها markaan leeyahay mawduucan wuxuu ku saabsan yahay noocyada doqonta waxaan wax ka taaban doonaa noocyada ay u qaybsanto doqonta taasoo ku saabsan ragga awalan aabaha waxa looga baahan yahay inuu ka feejignaado waxyaabaha magaciisa qiimo dilayo ama liidayo oo bulshada dhexdeeda ku xun dadku ninka aan dhinacna ku fiicnayn waxa ay u yaqaanaan doqon ama dabaal marka ka fogow inaad noqotid mid qaata magaca oo waxa isweydiin mudan haddana sidee ayaad uga fogaanaysaa ama aad uga feejignaanaysaa inaad qaadato magacaas bidnillaahi tabaaraka wa tacaala waan faahfaahin doonaa sida aad uga feejignaan doonto haddii Rabbi raali ka noqdo waxaan ku tirin doonaa noocyada doqonta ay ka kooban tahay ee marka bal adigu isqiimee oo is eeg haddii aad mid ka mid ah isku dhex aragtidna u qalab qaado sidii aad isaga fogeyn lahayd in aad qaadato magaca ama ay bulshada ku bixin lahayd si aan u ogaano halka ay ka soo farcantay magaca doqon waa inuu horta marka hore aan wax ka taabanaa taariikhdeeda koowaad waxaa la sheegaa odaygii doqon la oran jiray in uu lahaa 4 xaas ama 4 bahood oo ay dhaleen 10 caruur ah 3 isku bah ah iyo 3 isku bah ah iyo 3 isku bah ah midna bahgooni ayuu ahaa waxa ayna kala ahaayeen 3 daalay ah iyo 3 xaalay ah iyo 3 saalay ah halka kan soo harayna uu ahaa gaalay magacyadoodana waxay kala ahaayeen 3da koowaad ee isku bahda ah duufle daable iyo dareenle halka 3da xaalayda oo ku soo xigtan ay ahaayeen xiluhu uurey xoog moode xididkii xante iyo xaajadu watay ka xog warame halka 3da saaleedahana ay ahaayeen magacyadooda surundheer ka dhaanshe soor qureed cune si xun war halka kan ugu dambeeyo bahgaarka oo gaaleedahan uu ahaa gareema gasho kamana baxdo waa halka bahgooniga inta maanta waxaan ku soo gabagabeynaynaa doqonta noocyadeedii kala duwanaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan sii faahfaahin doonaa 10ka doqon iyo mid kasta wixii u gaar ah waan rajeynayaa in adiguna ila joogi doonto ila socon doonto fadlan haddii aad channelka aad ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa si naxariis leh inaad nagu soo biirto subscribe taado muuqaalkan like tiraado share si tiraado asxaabtaada la wadaagto wixii fikraad noo haysana aad commentiga noogu reebto وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته